kulan wanaagsan asxaabta sida tooska Facebook nooga daawanaysa waxaan ahay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh waxa aan ku suganahay dugsiga sare ee xaafadda Islii oo kamid ah goobaha codbixinta ay maanta ka dhacayso gaar ahaan deegaanka Kamakunji la yiraahdo oo kamid ah deegaanada caasimadda Nairobi waa doorashada ku celiska madaxtinimada dalkan waxaan jeclahay dhowr qof oo doorashada ka qayb galay ama codkooda dhiibtay oo xaafadan jooga inaan weydiiyo walaal magacaaga adoo ku bilaabaya bismillaahir rahmaanir rahiim axmed cabdullaahi ala dhahaa codku waan soo ridanay waxaad mudaa jawi wanaagsan oo aad u fiican doorashada noogu socotaa anigoo laba shakhsiyan madaxweynaha hadda ku jira ayaan soo doortay waad mahadsantahay doorashadii hore ma joogtay waan joogay haya markaad isbarbar dhigto doorashadii hore sida ay ahayd dhaqdhaqaaqa zaxmadda dadka tiradiisa iyo doorashadan maxaa kuu baxaya wallaahi waxaad moodaa tii hore waxaa jiray hadda xaafaddan Islii oo kale xildhibaano oo waxaa jiray xildhibaano oo Soomaali ah marka Soomaalidu waxaad moodaa xildhibaanadii inay soo raacayeen kasayaasha yar qabiil iyo wax oo tii hore waa keer ciriiri badnayd laakiin hadda waxaad moodaa tan inay yar maaragtay ka yar dad yar tahay laakiin doorashadu si fiican u socotaa insha Allah madaxweynahaana noo soo bixi doonaa waad mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay waxaa xusid mudan in doorashadan dadka ku tartamaya ay yihiin un ragga u taagan madaxtinimada oo kursi kale lagu tartamayo uusan jirin gabar baa hadda halkan soo gashay oo iyadana rabta walaal codka ma dhiibatay mise hadda dhiiban rabtaa hadda dhiiban ay xageed ka timid halkan Islii xaafadda Islii yaad ka timid hadda waa duhur waa kowdii oo wax la jirto Soomaalidan soo daahin jawaaridana kulay waa nafaas bilad waa gartay inaad codka dhiibato maxaad u baahan tahay national ID ga u baahan tahay waa dhalashada dalka national ID ga national ID ga u baahan tahay deedna kana tusaysaa kadibna magacaaga laga baarayaa computerka systemka markuu soo baxo sidaas ku codaynaysaa dabcan qofkaad codka u dhiibi lahayd waad soo go'aansatay waa soo go'aansatay waad mahadsantahay waxaan ku weydiiyey doorashadii hore halkan maad ka riday mise halkanaad ka riday wax amni darro ah ama xasilooni darrood ka cabsanaysa miyaa jirtaa waan yar cabsaday waxaa sanado salaada ma way horta waxaan fiirinayay jawiga suuya aad ma mahadsantahay dad badan baa walbahaarka runtii qaba xasilooni darro inay dhacdo sida ay gabadhanba sheegayso waxay tiri xilligan waxaan u imaaday jawigan eegayay waa gartay dhalinyaro fara badan halkan jooga weli goobta aan ku suganahay waxa weeyaan dugsiga sare ee xaafadda Islii oo deegaanka Kamakunji ka tirsan walaal codka ma dhiibatay hadda timid dhiiban rabtaa waa gartay magacaaga maxaa la yiraahdaa Mustafa xagee ka timid Islii qaybteed ka timid tolofka waa jidka 12aad ee xaafadda Islii ayuu ka yimid Mustafa hadduu rabaa inuu dhiibto bal Mustafa aan raacno si uu meesha uga dhiibanayo codkaan wada tagno Mustafa si raacayna si aan bal u ogaano goobta uu codka ka dhiibanayo waxaa si toos ah nooga daawanaysaan Facebook galaanta afka Soomaaliga waxaan ku sugannahay xaafadda Islii gaar ahaan deegaanka Kamakunji ammaanka ayaa aad loo sugaya ciidamo boolis ayaa halkan ku sugan sida aad arkaysaan meesha aan ku sii soconno waa mid ka mid ah goobaha codka laga dhiibanayo waa bartamaha dugsiga sare ee Islii ilaa dhowr fasal oo iskuulaadka ah ayaana codka laga dhiibanaya qofka wuxuu ka bilaabayaa markuu halkan saan u soo galo meeshan waa sarkaal ka mid ah sarkaalka guddiga doorashooyinka waxay haysataa waraaqihii buugaagta Mustafa oon la soconnay wuxuu hadda si toos ah magaciisa looga baarayaa Mustafa wuxuu u dhiibtay sharcigiisii dalka Kenya ee kibaandhaha loo yaqaano magaciisa ayaa waxa laga baarayaa systemka inuu ku jiro kadibna farta ayuu Mustafa dhiibtay fartaas waxay muujinaysaa inuu yahay qofkii saxda ahaa Mustafa farti waa uu saaray magaciisa marka hadda la baarayaa inuu yahay qofkii saxda ahaa wajigiisay fiirisay marka hore waxaa lasu fiirinayaa farta aad dhiibatay kibaandhaha iyo sawirka kuugu jira systemka kadib mas'uulka kale ee guddiga doorashooyinka ka tirsan ayuu qofka codka dhiibanayo wuxuu ka fiirinayaa liiskaas waa liiskii diiwaangelinta horey loo sameeyey wuu baarayaa
waxaa si toosa u daawanaysaan facebookka laanta afka soomaaliga magacaygu waa cabdirasaaq xaaji catoosh waxa aan ku suganahay dugsiga sare ee xaafadda islii ee deegaanka kamukunji ee magaalada nairobi waa doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada dalkan loogu tartamayo muran badan baa doorashada runtii ka taagan meelo badan oo waxaa jira aan maanta codbixintu aysan ka dhicin gaar ahaan gobolka Nyanza magaalada Kisumu oo mucaaradka ay aad ugu xooggan yihiin arrinta kale xusida mudan waxa ay tahay in doorashadan dadka isoo soo baxay ay aad uga yirhiin doorashadii hore Mustafa aan la sii jaan qaadno magaciisi waa la saxay wuxuu markaasi hadda sharci u yeelanayaa in warqadii codku uu ku dhiibanayo la siiyo warqadii baa loo duuduubaya تيم برالو وفتي أو شقيانة سا مصطفى ورقد يقول آذي هيك سؤال يا مركز قرآن في سوق جارية مصطفى مركز نحن وكلا بحينا مصطفى يص ماشي وقرآن كوجاري لها شرعيا لما راعي كرو سجى قرآن كسوق جارية مدحوينياش ترتميا أي صور قاضي ماشي وقرآن هي مدحوينها قربا أيوه وقلنا يا على مدة صحيدة ومعناها إذا كان مدحوينها ندورتي مصطفى قفكي ودوران لها وصوشيري santuuqii buu yimid Mustafa wuu riday codkii wuu codeeyay Mustafa wuu codeeyay warqadaas ku codeeyay aad baa Mustafa u baan asmaanta santuuqan waa santuuqii madaxweynayaasha ay ku kala baxayeen magaci baana ku qoran Mustafa kibaandihiisii ama aqoonsigiisa loo celiyay fartaa waxa laga saarayaa Mustafa astaantaas oo ka dhigan inuusan mar kale codeyn karin مصطفى خد بالو مريي فرتير دب دب ابو مصر نقن كرو ادو ما سنت مصطفى سي سغوتينينا مصطفى هي مصطفى سي سغوتينينا مصطفى وان كاغا مهد علينا وقتيغا ان سيسي بي بي سي way ku mahad celinaysa doorashadan ku celiska ah nidaamka wax loo dooranayo waa nidaamka aad indhihiina ku aragteen oo qofka markuu yimaado mar walba uu marxalad marayo marxaladda ugu horeysa oo ah in sharcigiisa la hubiyo marxaladda ku xigta oo ah in sharcigiisa diiwaanka laga ilaaliyo laga eego iyo tan ugu dambaysa marka uu dhiibto fariyaradaas loo marinayo Mustafa aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa waxaan ahay Cabdirasaaq Xaaji Catoosh fadlan waad sii share gareyn kartaan ammaanka ayaa aad loo adkeeyay waxaan ku noqonaynaa marka goobtii ay BBC du deganay soo dhiibatay afkii hooyadan waa hooyadii daqiiqado ka hor aan wareystay iyadoo markaasi soo gashay goobta doorashada oo codkeedii aanan dhiibanin hadda codkii bay soo dhiibatay haye dareenkaaga ka waran haye kor u hadal kaameradana eeg waxaan dareemayaa inaan macnaha xaqayga soo gutay inaad xaqaaga soo gudatay constitutional right constitution waa xuquuqdaadii dastuuriga ahayd hadday waxaad ii sheegtay inaad duhurkan u timid walbahaar aad qabtay walbahaarkii ma kaa ba'ay haye khadda xaggee lagu mari halkaasaa khaddi loo mari u jeedaa maadaama aad cilaan qabto ama xinna aad baad u mahadsan tahay asalaamu calaykum waalaikum salaam وهجاك وليه واحد نقدر وانا في فيسبوك قلت افكار صومالي احمد وشقان كجرا بركه ما هضنا ونقولنا واسكو نقون دونا فضلا وسيشر جرين كرتان ولسي وداي كرتان معلومات كانت تدكينا اما اصحابتينا كومنتنا اما فكرنا اسكو ديبان كرتان مركلان اسكو نقون دونا اد ما هسنتين نقول